inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun indhaha looma dhameystiri karo waxa sawiradii ugu horeeyay laga helay dadkeenii Soomaaliyeed ee doonta ku dhax dhintay ee qaarkood gaajo darteed muddo 16 maalin ilaa 15 maalin u dhaxaysa doon maadaama ay badda ku dul sabeynayeen u dhinteen gabdhaha u badan doonta sawiradeedii dadkii dhex saaran iyo xaalado kale oo sawirkan iga dambeeyay uu kamid yahay ayaana soo gaaray marka ugu horeysa telegramka ayaan codsanayaa inaad ka soo aragtid cadeymaha dheeraadka ah ee halkan aan lagu soo gudbi karin waxa ka aqoonsan kartaa dabcan dad laga yaabo inaan laadahay ama ay dhici karaan inay la yihiin waalidiin badan oo siyaabooyin kala duwan u goobaya ilmahoodii nolol iyo geeri markii hore ay ku laayeen balse sawiradan haday ka dhax aqoonsadaan inta nool iyo inta dhimatay markaas murugtii badneed ee heysay ay ka yaraan doonto nala gudbi fariinta meeshan waxa ka dhacday musiibo nin Soomaali ah oo xarun ku leh degmada Xamarweyne ayaa la sheegay inuu dadkan sidan u galay oo hawshan uu isaga isugu soo dabaruuday ninkan oo hadda xamar ka cararay kuna sugan Nairobi ayay xogtu sheegaysaa in dhalinyartan uu ka diray Mombasa kadibna ay isku shubeen laba doon kadibna doomahaasi ay ku wareejiyeen rag la sheegay inay burcad yihiin manaxayaal ah kuwaas oo matoorkii labada doomoodba ka furtay una sheegay in cilad farsamo oo ku timid awoodeed dib loogu celinayo meeshii laga soo kaxeeyay la soo hagaajinayo waqti dheerna aysan qaadanin loona soo laabanayo ma fahmi kara sida ay ku ogolaadeen dadkaas Soomaaliyeed ee aqliga iyo garaadka dheeraadka Ilaahay ummadaha kale uu siiyay dabcan leh dad Soomaaliyeed dadka aqli badan ay kamid yihiin maskax ahaan heer sareeya haddana waa aqbaleen ilaa qadar qoran waaye waa laga dhaadhiciyay in loo soo laabanayo haday ku dhigi lahaayeen maya waana geenaysiin ama waa isla halaagsameena waa la geen lahaay meesha laakiin nasiib daro ma ku soo dhicin ayagana waana la soo waday meeshii ayaa looga tagay rafaadka aad aragteen ayay mareen ugu dambeyn sawirada aan helnay runtii qoos weyn waay gabdhaha u daran waliba qaar aan kici karin ku jira socodka dhibaayo dhalinyarta rag inta badbaaday xogaa waa ishaayaan wali waxa dareemaysaa adkaysi badan in lahaayeen laakiin gabdhaha runtii aad ay dhibaatooyin u gaareen oo aad u daran waliba waxa sawirada kamida oo aan aad ula yaab waxay tahay in dadka xitaa meesha la geeyay ama la seexiyay ay yihiin meel runtii ku meel gaar inay tahay aad dareemaysid dayacaad u badanna ay ku jiraan dayacaas dadka ay ku jiraan waxa kamida in dadku ay cunto xitaa ag yaalin oo dhul caadi ah oo gawaan ah oo sida garoonka kubadda cagta aan ku ciyaarno waliba fuustalka oo kala ah ay jiifaan dadka qaarkii cunto waa la soo gaaray laakiin cuntada waxay u yara eg tahay cunto oo aan aad maaragtay u tayabadna inay tahay si kasta ha noqotee adiga intaan waa u dhaantaa gargaar waa heleen gargaarkaas ilaaha kiisa ayaa wanaagsan markasta laakiin xogaa gurmada ayaa la siiyay waana laga soo badbaadiyay badii ay dul sabeynayeen isbitaalka taqasuga ah Muqdisho waxa markii lixaad 7 bisha December imaanaya dhaqaatiirtii hindada ahayd ee qaabilsanaa qallimada bedelada jilbaha simaha iyo seedaha diiwaangelintu way socotaa ee ka soo gaar lambarada la qaabiliyo waxa xadidan yihiin wajiyada dabcan dadka qaar hadda la helay waa dadkii la raadinayo oo waalidiin aad u tiro badan ay baadi goobayeen kuwa kale ayaa jira oo ilaa hadda aan raq iyo ruux lagu haynin balse sawirada naadirka ee la helay ayaa waxa ay muujinayaan gabdho tiradooda aan ku qiyaasnay ilaa iyo 8 oo hal doon wada saaran oo wada dhintay ama naftii ay ka baxday waxaana sawiradaas runtii ay yihiin kuwa quus ah Sudanes Specialist Hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeena waxa uu ku guuleystay markii afraad u xiriir ah abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeena hadba aad minaad naftaada rabto hadii kalena xaan kuugu aalhe waxa kale oo aad arki kartaa in dadka meesha ay aad ugu baaba'een oo macnaheedu meedka uu ku dhex qurmay doonta oo halkaas aad arkaysid dhacaan xitaa inay doontii buux dhaafisay oo sida biyihii oo kale uu buux dhaafiyay aad iyo aad runtii uga xumaay sawirada aan isha ku dhuftay qof ma fiiri karo laakiin hadda aragtaan ama rabtaan na fiirisaan telegramka si ugu yaraan loo aqoonsado dadkan eheladoodan ay u ogaadaan laabtan ugu qaboodo